المحاضرة عاو إن شاء الله وحين أقول يا شيخ سهل وعنوان كيدو يحي عناية السلف الصالح بوحدة صف الأمة. السلف كسيدة يقول دالة هيين يقول دالة جيرين يعني أمضى إن مدلا قد يقول لهم مذايو يدال كودية ماشي كتاقناين وانا عوان يعني كصاب سن مركا الله فيري وصول حقليا عنوان كان ندوذا يا هالدقة الندوذا وقدقني إن هذه أمتكم أمة واحدة إن شاء الله وحرجينا يا الشيخ كل واسوكو بدونا مركو لما يكذب إن شاء الله وحي أسئلة يدتكو قبان إن شاء الله سوق بين دونا أسئلة وأنا آخرين دونا كل إنك كلا تفاتير دونا أسئلة كوا يعني مهم كاي كوا كلا صار دونا لكن وحابر رجينا قف كسر سؤال أو قبها ساقرة قف كسر سؤال أو قرة يا موضوع كسر كوساب سنت هاي تدخل ندوة ويسوقان مرك إن شاء الله موضوع على ساقرة على سوق بيو سؤالها على سوق بيو صلاة ده وحن تكون دونا سديدة إيو بركة سديدة إيو بركة يعني إن شاء الله صلاة ده يعني تكون دونا آذان كي يقين كنا وإسراعين دونا هالمر انت إن شاء الله إيو براروجين الشيخ رندك سودوين إياه فليتفضل مشكورا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سيدة الشيخي ورال آنس إن شاء الله تعالى موضوع عناية السلف الصالح بوحدة الصف oo ah macnaheedu yahay dadkii salafka inaga horeeyay dadka midnimadooda iyo is ururintooda si ugu dadaali jireen ayaan insha Allah taala wax ka oran doonaa kalimaad kooban. mawduucu runtii waa mawduuc muhiim ah insha Allah nusuusta quraanka ku soo aroortay iyo nusuusta ahadiista wax kamid ah baan sheegi doonaa haddii Allah idmo waliba inagoo isku dayaan raacsiino culimadu hadalka ay ka yiraahdeen waxaan wax ka oran doonaa tusaalayaal ku saabsan rasuulku sallallahu alayhi wasallam suu ilaaliyay iyo saxaabadu. waxaan wax ka oran doonaa insha Allah arrinkaas inuu yahay tilmaamaha ahlus sunna wal jamaa dadka ahlul xaq ah inuu tilmaamahooda yahay inay ilaaliyaan dadka safkooda insha Allah. haddii aan ka gaaro waxaan ugu dambaysiin doonaa wasaa'il dadka u ilaalinaysa markaa wuxdada iyo kulanka ay markaa laga rabo inay markaa isugu yimaadaan diinta iyo xaqa. shareecadeena islaamka wa afdalu sharaa'ic runtii aad iyo aad bayna baabkaas u ilaalisay wuxdada iyo dadka inay midayso qofkii diinta raacraacana waa uu ka dheeganaya oo waa ka macnaa helayaa sida weyn oo diinteenu marka ay u ilaalisay dadku inay midoobaan. muhiimadda uu leeyahay waxyaabaha ku tusinaya waxaa ka mid ah dadka gaalada ahi markay muslimiinta u awoodi waayeen markay kulansanaayeen oo midaysnaayeen waxyaabaha ay ku tashadeen inay markaa muslimiinta kaga adkaan karaan inay ahayd inay kala qaybiyaan. mana jirto taariikhda islaamka marka dib loo raaco muslimiinta in laga qaalib noqday ilaa waxa keenay waxay inay kala tageen oo wuxdadoodii iyo markaa midowgoodii la taag dareeyay oo markaa waxa way u daciifay. diinta islaamku cibaadaadkeeda iyo mucaamalaadkeeda kulligood waxay ku dhisan yihiin oo ku salaysan yihiin ulfa iyo jamaaca iyo imaatan. salaada jamaacada oo u jeedaan masaajid baa la dhisay waxaa loo dhisay dadka muslimiinta inay isugu yimaadaan maalinkii 5 jeer. wax kale ma aha ilaa dadka muslimiinta waxdooda ilaalinaya. hal imaam baa la dabagelayaa
ficilka uu sameeyo uun baa la samaynaya la khilaafi mayo waa arrin ku tusinaya diinta islaamku say markaa muhiimadu siisay midnimada iyo kulanka iyo ismaatinka usbuucii mar baa lii jimca oo wuxuu ka weyn yahay salaadii jamaacada ee caadiga ahayd ciiddii baa sanadka la yidhi mar ama laba jeer xajkii baa ka sii weyn oo muslimiintu meel kasta isaga imanaya salaadda meesha loo tukanaya waa qibla waaxida allaha la caabudayaa waa mid keliya macnaa waxaan uga jeedaa guud ahaan diinta islaamka markaad fiiriso qaabka ay u muhiimad siisay waxdada iyo dadku inay midoobaan inuu macno weyn kuu soo baxayo intaas ka bacdi haddaan sidaa guud u sheegay waxaan jeclay insha allahu tacaala nusuusta baabka ku soo aroortay wax ka mida inaan insha allahu tacaala wax ka iraahdo qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ila waantum muslimuun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله سبحانه وتعالى وحؤون ذي ذاتكم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا صفة الإيمان بالغ رواغية سلفك وحي أورنجرين haddaad aragto allah subxaanahu wa tacaala oo lafdiga yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muslimiinta ugu dhawaaqaya asqi samcaka dhegta raarici laba mid weeye wanaag baa lagu farayaa ee ka qanimayso xumaan baa lagaaga digayaa ka joog marka ilaahay subxaanahu wa tacaala lafdiga iimaan buu dadkii ugu dhawaaqay waxaa la faray marka inay alle ka baqaan baqdintiisa xaqa ah qofna uusan soo dhiman isagoo marka aan ahayn مسلم اللي أسوه كان سمي ألا مركا وحو كحجي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قبصد إلهي سبحانه وتعالى حرقيسا حنك للتقنين إلهي سبحانه وتعالى نمعدي سنحسوستا كوركين وكيالي مرا عدو إسوء هيدين كذبنا ألا قلوبتين إسوء صوت دميو هذا هاتين مركا ولا له إلهي سبحانه وتعالى نمعدي صدرتين أضوا على كل نقطين طبعا آيات السبب إلهي دي كسو دكتي سيدة الشيخ ابن إسحاق رحمة الله عليه وغيره وعن كسو دكتي أوس إيا خسرج أرنتنا وحي هاي نين يهودية أيا وحو صومري أوس إيا خسرج ولبضوا كما لبضي قبيلة كوكم رايين أنصار أصحابتي النبي مدينة دقني النبي وسو هجرودي nimanka marka cadow cadaawad iyo dagaalo xun baa ka dhex jiri aad bay isu leyn jireen niman cadow bay isu ahaayeen marka ninka yahuudiga ahi wuxuu arkay iyagoo wada fadhiya oo koobka shaaha wada cabaya arrinkii aad buu marka uga xumaaday oo aad buu uga xaweeyay arrinkaasi uga dhiidhiyay ninka yahuudiga ah kadibna wiil buu diray oo wuxuu yiri nimanka dhex tag fariiso dagaaladoodii iyo waxyaabihii dhex mari jiray iyo gabayada isu tirin jireen oo qabyaalada iyo dagaalka ku saabnaa sheeg sidii buu sameeyay nimankii waxay dhageysteen dabcan waxan xamiyada iyo qabyaaladu qofka isaga baaran tahay ilaa raggii waxa weeye isu booday la yiri ma anaga naga adagtiin ma anaga dagaal naga adkaateen waayo shiilamadooda inoo balan biri hubkan isu qaadan arrinkii baa nabiga gaaray sallallahu alayhi wasallam markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam bid'a wal jaahiliyati wa ana bayna adhurikum ma waxa isugu yeeranaysaan macna arrinkii jaahiliga anigoo idin dhex jooga oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dhexdin aan joogo biyaa isugu yeeranaysaan kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam aayadkan buu ku dul akhriyay hadda aayad aan akhriyay iyo marka nabiga sallallahu alayhi wasallam buu ku dul akhriyay marka sabab nusuulka markaynu fiirino dabcan dadka ay waxdoodu dhibayso oo dadka muslimiinta inay mid yihiin ay dhibayso waa dadka yuhuud ninkana waa yuhuudi marka macnaha inuu ka dhaqaalana waa maxay qof kasta oo dadka kulankooda iyo jamaacadooda ka shaqeeya inuu burburo shaqada yuhuudu haya marka waa qof khatiira oo bulshada wuxuu ku yahay khatar oo waxa weeye waliba cudur xun weeye marka in la iska ilaaliyo
وددك يكدك تونادان أي مركا مهمة الله سبحانه وتعالى مركو يري حرق اللقب صدى أيوح لي ولا تفرقوا معنى أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة وحو الأمر يا سبحانه وتعالى تدكو إني مذوبان كلا تجنا وكرر يسير ابن كثير رحمة الله عليه ويجري إمام الثعلبي رحمة الله عليه هذا الآية مركو كهذه وحليه الله سبحانه وتعالى وحليه وردتك على الرمييو طاعة إيه جماعة لازمة إلهي أن الضيعان إيه مذوقة إيه مذنمة لازمة محايا لي فإنها حبل الله الذي أمر به وإلهي حرقيسي وإذن أمرينا قبستان مركز هذا الكسيع عد يشيخ وحليه وأن ما تكرهون في الجماعة وضاعة خير مما تحبون في الفرقة قفكو وحوادع كران إنه إلى هذا ما رتدتكم مركي مذوبان أما أنه مصلحة إيه دان آلات كويدا مركز وحليه شيخه ورهديب الشيطان وحكاته صدتك من نمضوضة إيه كولنك يدتك إني مديهين وحا آد كولنك كهشيد ولقى إيا الله فرقة يقولون شوك يدد إني كلا تغان كهلي ميسيدي جماعة إيا كولنك لازمة هذا القصود عيا سوي حتى هداد كلا تغان مصلحة كأركتوه ورمصلحة دادتك مدوغوذة إيا من نماذا آد كهليسان أيام حي كوينتهي قفكم مصلحة يلا وغم وغتاه إنه كهلي كورا ما كهلايه دادك وكلا تغان مركا ساسا لنا أمره سبحانه وتعالى آيات الله بعد الله وحوله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ابن جرير رحمة الله عليه آيات أمرك فسري وحجري ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك هل كان أمرك دول استاغي ما الله وحوله سبحانه وتعالى آيات هذا معناتها الصومال كل المرة هدي ألا الدوني لها تدك وحو كدق لها أمت كريه لكن الله وحولي تدك إن إسخلافان كزولميان وخلافك وسنة كونية تدك بني آدم كالله كل حبوري لكن خلافك لبن نقون كره مد ديب كيني كره أو تدك برشدة ديب كيني كره إيه مد خلاف تنوعه برشدة ديب كيني كرين marka kan la diidaya dadku inay ku kala tagaan waa ka dhibta keenayo dadku aqeedadii iyo diinta ay ku kala tagaan alla ama masaa'ilka ijtihaadiga ah ee mesela fiqiga oo shayga kan masaba banaaya ma banaana wixii la midkahay arrinkaas waa wax dadku ay ku abuuran yihiin dhibna male marka sheekhaas markuu fasiraya illa man rahima rabbuka dadku way iskhilaafayaan wala yazaalun mukhtalifina illa man rahima rabbuk halka markuu fasiraya wuxuu leeyahay fa'alu rahmatillahi ahlu jamaa dadka ilaa man raxma rabbuka dadka alla u naxariista mooyee dadku iskhilaafayaan khilaafka loo jeedan waa kii tafarruqa keenayo dadku macna diinta iyo aqeedada marka ay ku kala tagaan ayuu wuxuu leeyahay waxa weeyaan dadka la leeyahay ilaa man raxma rabbuka waxa weeyaan ahlu jamaa waa dadka u saaxiibka midowga iyo kulan inay kulmaan wa in tafarraqa duruhum wa abdanuhum dadka haday doonto deegaanadooda muu jeeda iyo midabkooda ha kala bedelaado لكن كلمة واحدة مدينة سوا كلمة الإسلام هي عقيدة هي دين صحابي يكون مديسين دجان كودو أو كلا فوق مذهب كودو أو كلا بدلن أي هذا المديهينو وأهل الرحمة أما ضدك أهل المعصية ذاهي وحي صاحبه يدتك معنا وحوي قال لماذا هي منافق لماذا هي حق دقة هي أروح ماذا يكوشران وأهل الفرقة ضدك لا تكسموا يعني وإن جمع دورهم وأبدانهم هذا ربان ميل هو الدجنادين مذهب كودنا مذ هو النقدية سوء كادينه وضد يجو كلا تكسن وتلمان تضدك أهل المعاصي ذا ذنوب تأصاحبك وكلا تجا أصاحبك لكن ضدك إلهي أهل الرحمة الله دورتي تلمان تودا وامحي وأن يكون سيهين مذهب كودا يدجان كود هذا كلا فقادي الله سبحانه وتعالى كساس وحو أمر يا مسلمين تا حرق الله سبحانه وتعالى إني قبصدان وإن كوكا لتجين أرن كاس مركا إساقاهي وما مهمة إلهي سبحانه وتعالى الله صار أنبياء ألا وحو لي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله وحي لي سبحانه وتعالى وحال وجدي نبي محمد دين تحقيدا وحي الله دردار ما وجدي نبي نوح يوحي أن الله سبحانه وحي نبي وليه ودردارن إبراهيم يا موسى عيسى ومحوها أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دين توحوي أوجا هنا كوكلة تجننا. إمام البغوي رحمة الله عليه ملك فسري وحجري بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. إلهي سبحانه وتعالى وحو سوبحي أنبياء دمانتود وحونا سوبحي دين تإني توسيان iyo jamaacada iyo midowga muslimiinta in isugu keenaan kana tagaan marka furqada iyo mukhalafaadka dadku in iskhilaafaan inay dadka ka dheereeyaan oo ay ka fogeeyaan baaba dhamaan Allah subhanahu wa ta'ala anbiyada u soo diray illa maxaa ugu dambeeyay an aqiimu diina wala tatafarraqu fihi diintii inay toosiyaan oo ay ogaan isla markaana aan lagu kala tagin. ابن كثير سيدو كورمي وحليه وصى الله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء عليهم السلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الاختلاف عن الافتراق والاختلاف. هذا الكي بغوي ولا معنى واسكمد آيات كقرآن كهذا انت كغتغنو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قار كم إذا هدي أن سوق هذا النه والنبي وكورمي صلى الله عليه وسلم دتك من مضوضة يمدوغ حديث أورنيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نبي كورنيه إمام مسلم في صحيحه وكسو ساري وحوليه أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. إلهي سبحانه وتعالى سدح برهال إذن كيهي صدحنا إلهي سبحانه وتعالى وإذن لنعي فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدح ذا الله سبحانه وتعالى إذن كان راليه كو وحويان أن تعبدوه ويتنلبانا ولا تشركوا به شيئا تصدحانا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حرق إلهي إن قبستان أيضنا أن نكوك لتغير مدآتهين ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. صدحنا الله سبحانه وتعالى وإذن لنعي قيل وقال هذا الكمال يعني ساسال الشيء ورأن سقنين ومستر يميل قفك وكسوقات والله هو آنو جرينين قفك إنه ضدك المسلمين تلحظة كفا فيه أو كشيكيه أرنك الله سبحانه وتعالى ما أقول سيدو كلا كثرة السؤال الله وإذن لنعي سؤال شبضا ومعناها سؤاله أي الحكمة ذي كجرين أما مارت قفك وقتشيده قفك كحجي يوحي لمتكها كوا ويه كوان الله سبحانه وتعالى وإذن لنعي. وكذلك تأضم بيس إضاعة المال حوله الله الليه حوله ضدك المسلمين تقيمة يقف ديان قوام الدين والدنيا لبدو وكحرنت حولها مركو حوله قفك إنه هالليه وميلان مناسبة هين ودقه تانا الله سبحانه وتعالى وإذن لنعي. مركو حديثك إنك ماشا مهمة إنه كدر الشنينه وأصدح دي نبي صلى الله عليه وسلم وليه رالب قال إذن كيهي متكم إذا محوها وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الله سبحانه وتعالى حرق سقفستان مركا أيضا نكوك للتقين. إمام النووي رحمة الله عليه مركو شرحي حديثة كان والشيخ شرحي إمام مسلم وحليه اعتصام بحبل الله. وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بآدابه. هذا اللي كان فيه وحليه ما دام النبي ينودر دارمي واعتصموا بحبل الله أيوه شيخ يري اعتصام بحبل الله وحاولوا كذا التمسك بعهده واتباع كتابه العزيز اللي بلنتي صدتكم إني كل دجان إسلام مركانا أي راعان كتابك اللي شرفت له حدوديسا أي كحدود يشان آدابتيسا أي كآداب يشان وقفك ونقضوا معرفتاي قف إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا تدبيقي عملي أبدري أنا إلى كتابك لأنكم السوديتشين هي معرفة دينتا
inaanu barakaysanno macna akhrisanno ama cibaadaadka kaliya qofku uu ka qaato maaha ee waa qofku diintii waa maxay yaa ayuha aladiina aamanuu udkhuluu fi silmi kaafa qofku inuu diintii dhammaanteed qaato ila diintu waa maxay kulliyun laa yatajaza waa shay kulliyo dhammaystiranoo ma googo'do laakiin in baan qaadanayaa inna waan ka tegayaa maya marka imaamna wuxuu leeyahay xarigga ilaahay nebigu sheegaya waa ilaahay kitaabkiisa qofka markuu inuu qabsado xuduuddiisa ka xuduud yeesho xalaashiisa xalaashado xaaraanta ka xaaraam yeesho adaabtiisa ka adaab yeesho saasaa laga rabaa waa yahay ilaa uu ka yidhi marka hadalka nebiga sal slam uu leeyahay walaa tafaraquu wuxuu leeyahay fahuwa amrun bilizuumi jamaacati almuslimiin waa amar alle nebiga xaggiisa ka yimiyo nebigu wuxuuna amrayaa jamaacada muslimiinta ruuxa muslimka inuu laasimo iyo inuu marka qaarba qaarka kale u soo dunmo oo isu yimaadaan arrinkaasu markaasu wuxuu yidhi imaamna u yidhi wa haadihi ixdaa qawaacid alislaam qawaacidda waaweyn ee diinta islaamka mid ka mida weeye dadku inay furqada iyo kala tagga iska ilaaliyaan midowga iyo midnimadana ay aad u ilaaliyaan waa tiir ka mida tiirarka diinta islaamka waana mid ka mida saddexda ilaahay subxaana wa tacaala inooga raali yahay saasuu marka hadalkiisa uu ku yidhi imaam nawowi raxmatullaahi caleyh xadiiska haddaan intaa kaga gudbo xadiis labaad uu nabiga ka warinay sal alla alay slam alxaaris alashcari xadiiskana imaamu axmed iyo tirmidi baa soo saaray waana saxiix sheikhu alalbani raxmatullahi caleyhi wuu saxiix yeelay fii mishkaat almasaabiix nabigu wuxuu leeyay sal ly slam in allaha amara yaxya ibnu zakariya bikhamsi kalimaat an yacmala biha waya'mura bani israa'iil ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi yaxye oo ina zakariye ahaa 5 kelmadood buu amray inuu ku camal falo reer bani israa'iilna marka uu faro inay ku camal falaan marka xadiiska waan soo gaabinayaa inta daliilka baan ka qaadanayaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal ly slam wa ana aamurukum bikhamsin allahu amaranii bihinna aniguna waxaan amrayaa 5 alle subxaanahu wa tacaala amray inaan idinka amro marka 5tii nebiganu ka qaadanayna 5ta nebi yaxya markaa waynu iska daynaynaa saan waqti ugu soo gaabsanno waayay alsamcu waltaacatu waljihaadu walhijratu waljamaacatu waxaan amrayaa nebigu yidhi assamc inaa ismaqashaan maxaa yeelay maqalka oo la ismaqlaa waa sabab min asbaabi alwaxda dadku inay midoobaan oo ay mid noqdaan inay isdhegaystaan oo wixii maslaxadooda ku jirto ay iska dhegaystaan waa arrin muhiima kow wakadalika ataaca oo waxaa la isku adeecaya marka wanaagga uu yahay ama macaasi in la isku adeeco maya wixii ilaahay subxaana wa tacala raalli gelinaya in la isadeeco waa in amraya waljihaad baa in amrayaayo gaalada inaad yur iska tiraan iska celisaan ilaa dadka muslimiinta haddii ayn gaalada iska celin dushaa laga maraya waana dacfiga maanta jira muslimiinta haysta waayo walhijra in amraya waa midda afraada inaad markaa hijrootaan oo daarta gaalada in laga tago oo dadku qofku markaa diintiisa hadduu u boqo uu la aado beledka islaamka iyo muslimiintu meesha ay joogaan hijradu sidaa weeye iyo midda u dambayso oo waxay tahay waljamaaca waxaan kaloo amrayaa jamaacada fa innahu man faaraqa aljamaaca qayda shibrin qad khalaca ribqat alislaami can cunuqihi saasuu nebigu leeyahy sal ly slam waxaan amrayaa waa midda ugu dambaysa oo 5tii nebigu yidhi allah ay amray inaan idin amro waa jamaacada iyo midowga iyo midnimada iyo inaad mid tihiin waa yahay maxaa yeelay taaka in leeg qofkii macnaha qoortiisa kala baxa diinta islaamka qofkaasi waxa weeyaan wuxuu ku dhimanayaa wuxuu leeyahay nebigu fa innahu man faaraqa aljamaaca kan u dambeeya wuxuu ahaa waljamaaca waxaan amrayaa jamaacada muslimiinta maxaa yeelay buu nebigu man faaraqa aljamaaca qayda shibra muslimiinta kulankooda iyo jamaacadooda qofkii wax taaka la eg khilaafo oo ka baxa qofkaasi qoortiisa wuxuu kala baxa islaamnimadii ilaa an yarjica jamaaca
إلا جماعة المسلمين إيا مدنمدودا إيا مدوغودا وكسو لابتو قف كاسي وقف قورتيسي كلابحي إسلام نمدي معنى ربقة الإسلام ربقة اللوقان وحا ليها قولك وحراها لو وحرو قورت اللوقلية marka nabigu wuxuu ku shabahayaa diinta islaamka qool marka qofkii jamaacada muslimiinta khilaafa sidii wax qoolkii laga bixiyay sida amal buu ahaanaya macnawi oo qoortiisa wuxuu kala baxay islaamnimada marka banaanka ayuu ka yahay marka maxallu shaahidka meesha xadiiska inoo ah shantii arrimooda nabigu amrayay jamaacada muslimiinta in la macna dadka muslimiinta ay laazimaan oo ay ilaaliyaan nabigu wuxuu ba ka dhigay qofkii jamaacada muslimiinta faaruqa qof islaamkii faaruqay ana muhiimada ay leedahay nabigu wuxuu gaarsiiyay qof islaamkii faaruqay inuu yahay qofkii jamaacada muslimiinta markaa ka baxa xadiis saddexaad oo isla mawduuca hadaan ku daro Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ayaa wuxuu leeyahay ibn Umar baa waranaya xadiiska oo maaragtay Umar ibn Khattab dhalay wuxuu leeyahay waxa noo khudbeeyay Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu meesha la yiraahdo Al-Jabiyya meel la yiraahdo waa magaalo ku taala beed ardu Sham ayay marka ahayd markaas wuxuu yiri Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu waxaan istaagayaa إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ما أنت وحن استاجي يا دحدينا سيد النبي صلى الله عليه وسلم دحدينا ما نلقى استاجي مرك النبي يقول حجري مركو نجدح استاجي أيوه حلي هذا كان بنقول نجيري أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وعن إذا دردار ما أصحاب تيدا معنا أنا احترامتان هجاجسان كوا كحجة كذب معنا aad qabsataan sunnahooda kadibna kuwa ku xiga kadibna kuwa ku xiga markaasuu nabigu wuxuu yiri kadib waxa faafaya beenta ayaa faafi doonta ninku waa iska dhaaran doona iyadoo la qofku iska dhaaran doona rag iyo dumar ku raba noqday iyadoo la dhaarsan marxaanti buu la soo ordayaa oo marxaanti baan kacaya buu oranayaa iyadoo marxaanti la gashan markaasuu nabigu wasaayaad kale u sheegay oo wuxuu yiri war nin ragihi qof dumar oo ajnabi ka ah yuusan la gaar noqon maxaa yeelay haddii ay saas dhacdo shaydaan baa sadaxaynaya marka dhexdooda marka fidna inay ka dhacdo waa wax dhici karo waa wax dhici karta weeyaan markaasuu nabigu wuxuu yiri calay hadalka macna uu ka warin Umar weeye calaykum bil jamaa'ati wa iyyakum wal furqa fa inna ash-shaytaana ma'a al-waahidi wa huwa min al-ithnayn ab'ad man arada buhata al-janna falyalzam al-jamaa'a ومن سرته حسنته وسيئاته ومن سرته حسنته وساءت سيئاته فذلكم المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم لازم عليكم بالجماعة بمعنى إلزموا الجماعة وحال لاسنتان جماعة مسلمين وحال إذن كدق يا فرقضة إيا كالتقى محايا لقفك كريه وبنانك أبحى كاس أيا معيس الشيطانك هذا وقفك قونو جوغا شيطان بو حويين وبحي كدبنا الشيطان بهلكا كهليه شيطان كون الله هدا يسو تمادو هلكا وا uga fogaan badan yahay ka badan iska badaa ana markasta oo dadku ay isu yimaadaan oo ay kulmaan shaydaanku waa ka fog yahay markasta oo dadku ay jajabaan oo ay yaraadaanna shaydaanku waa u dhawaanshay badan yahay nabigu saasuu leeyahay qofka kaligiisa shaydaan baa maciisa isla markaana shaydaanku labada waa uga fogaan badan yahay halka qof oo kaliya nabigu marka wuxuu leeyahay qofkii raba baxbuux aljanna ay wasad aljanna inuu dego aakhiro falyalzam aljamaa muslimiinta kulankooda iyo midowgooda laazim qofkii raba inuu jannada bartankeeda dego iyo wasadkeeda maalinta aakhiro dadka muslimiinta midnimadooda iyo kulankooda ha laazimo waayahay markaasuu wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam qofkii ay farax geliso wanaaga uu sameeyay ayna xumaan geliso xumaanta ka dhacday qofkii naasa mu'mina saa waxa loo leeyahay ana qofku markuu xumaani ka dhacdo oo uu dib u arko daliil waxay u tahay in qalbigiisa iimaan ku jiro oo uu karahsanayo oo uu nacayo xumaanta
أي بديع كرتو قفكو هذا جيرد أنت يسوي شرتو مؤجا أما كل متاع أي ديع كرتو قفكو مركز ساء وجول وليه مركز قفكي مركز حمانة كدع أي ول جريسه ما عرفت يهدو ولا سمعينا وكفرحه قفك النوع عاص وتلمان تاريه فذلك المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قف كاس أي مؤمن حديثكم هو صحيح إمام الترمذي أي صحيح سمرك أي سنن كقصة صاري يحاكم يبيهقي الباني رحمة الله عليه مركه هو صحيح يالي مركه محل شاهد كحديثك ماشي عمر وخداب وجه لي سيد النبي قلنا وقد حستاجي مالين أو ور نوجو أخري حديث نوجو أخري ميان ما أنت أنا قلنا مركه إنك حستاجين مركه محل شاهد كماش إنك إنوه وهذا النبي يري عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوح الجنة فليلزم الجماعة انتاس نقطة سي النبي صلى الله عليه وسلم حديثك ونقطة إنك قصيص إنه معه هويان محل شاهدك إنه أويان النبي صلى الله عليه وسلم حديث أفراد هدي أن قدره ورنا يا نبي كورنا سلمان الفارسي حديث كان وحى صوص الإمام الدبراني في الكبير الباني رحمة الله عليه وصحيح يالي وحولي النبي صلى الله عليه وسلم البركة في ثلاثة في الجماعة والثريد والسحور صدح بوحى كتشرته بركة صدح بكتشرته بركة وجماعة تدكو إني مذوبان وضاعة إلهي دينتي سيكون مذوبان انتظر النوع لو يقانو الثريدك iyo suxuurta qofku markuu soomayo inuu suxuurto saddexda nooc baraka ku jirta ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam dabcan saddexda nabigu wuxuu warmariyay jamaacada marka haday jamaacada iyo midowga iyo midnimada baraka ku jirto lidkeeduna waa maxay waa furqa iyo kala tag marka barako meeshay ku jirto lidkeeda waa maxay de waa baraka la'aan way marka dadku inay kala tagaan waa baraka la'aan iyo khayr beel way نبي صلى الله عليه وسلم يجري الجماعة رحمة والفرقة عذاب تدكو إني مذوبان والرحمة إيا النحريس فرقة إيا كلا تقونا مركة وعذاب حديث كان إسلام أحمد باوريي الباني رحمة الله عليه وحسنيي في سلسلة الصحيحة وحديث حسنة انت صديق أنك قد بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إيضنا وحنكو حجنا إياه tusaalayaal nabigu sallallahu alayhi wasallam si ugu dadaalay dadka muslimiinta inuu mideeyo oo mid ka dhigo tusaalaha ugu horeeya nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu dacwada bandhigay oo dadka dacwada ugu yeeray cid gaar ah oo marka uu taargariyay ma jirin bal dadkii nabiga rumeeyay sallallahu alayhi wasallam جماعة ugu horeysay ee nabiga ajiibtay waa markii ugu horeysay oo dacwada nabiga dadka ugu yeero kaanu ajnaasan mukhtalifin waxay ahaan dad kala bedelan waxa ku jiray arab macnaa oo arab kaliya ma ahayn arabina waa ku jireen dad kale oo arab ahayna markaa waa ku jireen u fiirso bilaal baa ku jiray abu bakar baa ku jiray عمار باكوشري يهويدي سمية سهيب باكوشري مقداد بن أوس باكوشري ضدك مركا نوع عاسي مركات فيريسو وانا عناصر كلا بدرن رقوا كوشرا دمر واكوشرا ضد شريف او ضدك برشاد دحيودا قفل القيمية واكوشرا ضد ضعيف او ضدك برشاد دحيودا اسكا تاقدر سنجرين واكوشران حر باكوشرته الضوامه كجرة عرب با كجرته حبش أسود با كجرة رومي با كجرة ومن بني أسفرة بلال حبشي با كجرة سوى جديد معنا عناصر مجتمع وآدو كلا بدلان أو كلا تقسموه وأول الزمرة كواحد يقول الرئيسي والنبي صلى الله عليه وسلم مركا النبي صلى الله عليه وسلم ساس بوجود ذالي وتصالحه inuusan dadka cid gaar ah inuusan markaa taalad gariisanay dhammaan bulshada noocyada kala duwan عناصر bulshada mujtamac bulshada macnaha xubnaheeda kala duwan inuu kulligood mideynayay oo meel isugu keenayay si ay u noqdaan markaa waa maxay far kaliya ayay ku tusinaysaa
وحكمده أو تصالى لبعضه والنبي صلى الله عليه وسلم كنت سنة يسوء عليه وحدة تاسوح هيد أول كإسلامك إيه مركو النبي مكة وشوقي النبي مركو وشوقي صلى الله عليه وسلم أو مكة تجي أو مدينة تجي عملك يجوه الرئي وقبته وحوها بناء المسجد وعنصر لفتجيسو كنت سنة وحدة دي محايا لي ضدك مسلمين تاهي ماشي سوق إيمانيان توجيهات كرباني قاعد كقادنيان عبادات كلا يكون عابدين يكبرانيان علمي أقونت إكراكل ميان هجامين تودا يتعلوا مساجدك هل كاسه مرك النبي صلى الله عليه وسلم تلابدي يجوه الرئيس وقادم مركم مجال مدينة جوحها بناء المسجد محايا لو ماشي مسلمين تكل بنيسي وقابت اجتماع يلفظ يكون كمسلمين تكاد يسوي تلابدي اللي بعده قاضي وهنا وتصالح وقت سنة النبي سوء حويان ودريالي مسلمين تمدوا جوده واحد إنه سميه مؤاخاة المسلمين ومهاجرين تي أنصارت النبي إنه ولا عليه صلى الله عليه وسلم مؤاخاة ولا لما حتى وحوي ضدك مركا حتى يسدح لين أنتي أنا مركا لا نسخن يتدور ولا يجين إن حتى المهاجرين نحفظ إنه النبي ولا عليه بعد هذا الشيء وكذلك أنصار نحفظ لكن تقول نوام حي إنه النبي ولا عليه مهاجرين يا أنصار ونين كستو مهاجرها لقال ولا لقي وام حي نين مركا وحويان أنصارية نبي مركا وحوي صلى الله عليه وسلم تآخوا في الله أخوين ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال هذا أخيري ولا لوبا ولا لوبا أنا قنا ولا الكي وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نبي مركا إنه سدا يري أيها لسوق جوريا marka waa tusaale kale oo xay ah oo ina tusinaya nabiga sallallahu alayhi wasallam sida uu gudaalay wahda tasaf iyo dadka muslimiinta marka inay madoobaan waxa tusaale kale taa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sameeyay isla marka oo tusaale afraada nabiga uu macna ugu dadaalay dadka midnimadooda markuu nabigu magaalada Madiina yimi dabcan wuxuu asaasay dawlad islaamiga oo markii ugu horeysay caga loo dhigo marka xaaladii lagu sugnaa markii Maka la joogay iyo markan Madiina la yimi waa kala bedelantahay muslimiintu markii Maka joogeen dad macna laga taag dareysto oo laga xoog badiyay bay ahaayeen laakiin hadda markii Madiina u soo wareegeen dawlad baa la asaasay quwwa yeesheen iyo xoog marka nabigu sallallahu alayhi wasallam muwaafiq iyo marka bunuud uu sameeyay ilaa mujtamac hatta aan muslimiin baa joogay yahuud baa ku nool Madiina si marka waxa weeye loo helo dadka muslimiinta inay mid yihiin isla markaana xeer dadka kale kala kaxeeya uu jiro nabiga sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu qoray qoraal uu sameeyay wasiiq uu qoray waxa marka ay ka bilaabanaysi bismillaahir rahmaanir rahiim hada kitaab muhammad sallallahu alayhi wasallam bayna almuslimiina wal mu'miniina min quraish wa yathrib wa man tabi'ahum فلاحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة دون الناس مسلمين تا مؤمنين تا قريش يرير يثرب ورير مدينة ويه يعدي صور على يجا ومعد اللي هذا وحوي يقوى أمة واحدة وهل أمة أكلية دون الناس تدك أنتو ذكرته أنا مسلمين تو وامد لما معها أنت مدينة مسلمين تشوكتا وهل مد هل دين بليهن نبي قال لقوا قادنيا ميل باللقوا وذا تريا معنا مدوي مرك الله فيريه وحي مركا تدك كلا أنتو ذا كلا كسوارتي ابن هشام أي مركا وركا حديث كاس كسو صاري وكو قري مركا سيريس وحكم ذا تي هذا إنه سوى شيء إنه يسوي نسول كهيد آيات نسوا أخريني مركي نمنكي أنصارات أوسية خزرج أي هبك سوقاتين أو طبعا يتقالمان النبي يقول يسقي لها الله يجري بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم وواحد يسقي يران إنسان جاهلي وواحد يسقي يران شرين أنا يقول أحد نتشوقه وما حي النبي صلى الله عليه وسلم
dhammaan wax kasta oo fitna ah oo sababi kara muslimiintu inay kala jabaan gogasheedu ku baqtin jiri meesha inay soo dhaafin kaas waa ka mid waxa ka mid aha waxyaabaha dadka shucuurkooda ama dareenkooda wax u dhimaya waa waxyaabaha sababi kara dadka muslimiinta inay kala tagaan nabigu waa baabiin jiray ilaalin jiray maalmaha kamida waxa dhacday nin inuu hooyadii ku ceebeeyay macna inuu hooyamadu iyo wixii madow jiro hooyada baa madow nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam aayarta bi ummihi innaka mar'un fika jahiliya warninkan ma hooyadiisa ku caayaysa inuu hooyamadu waa leedahay miya niyo waxa tahay ruuxay ku jirto khasla ama gobol jahilnimo ah macna qofka markii hooyadii xoogay lagu yara dhaliilo qofka qalbigiisa maxaa galaya wuxuuna cuqdada galaysa oo qofkii kale uu qaado nabigu marka sallallahu alayhi wasallam cuqdadaasi wuxuu dareemaya inay sababi karto muslimiintu inay kala jabaan wuxudada iyo kalinimada iyo midowga muslimiintu ay baabi'i karto marka nabigu sallallahu alayhi wasallam markii meeshii ku daweeyay wuu baabi'iyay qof dambana inuusan dib u sheegin buu marka nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa ayuu ku dadaalay ruuxi warninkan ma hooyadiisa ku caabanaysaaniyo hadaa sidaas samaysaniyo wax jaahiliyaho ana diinta islaamka waxyaabihi ay baabi'inaysa waxaan ahayna qofay ku jirto marka ayaa tahay nabigu wuu inkiray sallallahu alayhi wasallam sidoo kale to maalin baa dhacday laban wiil oo midna uu yahay muhaajiri midna uu yahay ansaari baa ceel bay isku qabsadeen xoogaa biyo meel laga cabiyay kadib xoogaa hadii ceelkii biyo la isku qabtay banaanka u booday yaa lal ansaar yaa lal muhaajiriin ninkii ansaariga ahana wariya ansaari buu yiri kii muhaajirigana wariya muhaajiriin buu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam waa maqlay ma baalu da'wa al-jahiliyya war muxuu yahay arrinkii jaahiliga in loo dhawaaqdo dacuuha fa innaha muntinna war iskaga taga waa wax quruntay weeye wax uraysa oo quruntay weeye qofku inuu u dhawaaqdo yaa reer hebeli hadda alfaada isticmaalayna waa alfaad sharciya garo muhaajiriin iyo ansaar waa alfaad sharciya oo wanaagsan weeye laakiin lafdigii xataa wanaagsan qofku markuu adeegsado sifa xun oo keeni karta bulshada inay ku kala tagto wanaagii lafdiga waxba tarimayo nina wuxuu yaa muhaajiriin nina wuxuu yaa ansaar waa alfaad sharciga xaqiiqda mamduux ka oo muhaajiriin iyo ansaar dad wanaagsan bi ahaayeen laakiin maadaama alfaada ay u adeegsadeen iyagu wax bulshadii kala geen kara nabigu muxuu ku sheegay dacuuha fa inna muntana illa qabyaalad bay gashay war iskaga taga waa wax urayo qurman weeye marka nabigu sallallahu alayhi wasallam tadbiiqiisa kamid ahay macna iyo suu ilaalin jiray waxdada iyo midowga iyo muslimiintu inay mid yihiin oo ay midoobaan waxyaabaha xataa keeni kara oo qofka shucuurkiisa iyo dareenkiisa kicin kara inay wax galaan nabigu sallallahu alayhi wasallam gogoshu ku baqtin jiray meesheeda inay dhaafin ayuu nabigu ku dadaali jiray sallallahu alayhi wasallam saxaabadiina sidoo kale ahaayeen oo laftirkoodu aad iyo aad bay ugu dadaali jireen wax kasta oo markaa dhibaya waxdada iyo madowga inay ka hor yimaadaan waxa kamid ah Abu Bakar Ali xoogaa beecadiisa waa ka dimaray laakiin markii dambe uu la beeca galay isagoo ilaalinay marka wixdatul muslimiin ibn Abbas iyo ibn Zubayr sidoo kale iyaguna ahaayeen tusaale kale waxaan u soo qaadanayaa taa iyadana Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu caamka la baxay caamul jamaa midowgii muslimiinta macnaa wuxuu ahaa Ali radiyallahu ta'ala anhu markuu dhintay oo khilaafadii marka waxa weey ka wareegay reer Ciraaq waxay beeca la galeen wiilkiisii marka ahaa Hasan reer Shaamna Muawiya hogaaminayo Muawiya iyo xaqay beeca la galeen kadib waxa dhacday muslimiinta in laba qayb sameeyeen reer Shaam oo hogaaminayo Muawiya iyo reer Ciraaq oo hogaaminayo marka Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu labadii qoloba marka isku soo baxeen kadib Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu ilaahay wuu waafajiyay wuu fakiray wuxuu ogaaday labadan ciidan iyo labadan jamaaco
anaysan kala adkaan karin ilaa ay isku baaba'aan mooyaane haddii ay baaba'aanna waxaa soo baxaysa quwatulmuslimiin meesha inay ku daciifto kadib markaa wuxuu gartay in midnimada muslimiintu ay ka weyn tahay isaga waxa maaragtay laga yaabo oo madaxnimada uu ku joogo kadib wuu tanaasulay arrintiina wuxuu uga tegay Muawiya inuu amiirul mu'miniin markaa uu noqdo saadarteed bacaamkii waxa loogu bixiyay caamul jamaaca sanadkii madowga muslimiinta ana waxaan uga jeedaa saxaabada radhiyallahu calayhim maslaxa yar oo kooban inay ka hormarinayeen maslaxada guud ee dadka muslimiinta oo Xasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu isaga oo la doortay oo dadkii markaa isaga la noolaa ay doorteen maca daalika inuu ka tanaasulo wuxuu u arkayay inay uga khayr badan tahay inuu waxa weeyaan sii hayo maadaama ay muslimiintu isku dhici lahaayeen isku baabi'i lahaayeen laga yaabo markaa wuxdada muslimiintuna meesha inay ku baabado midowga iyo midnimadu hadda inta taa kaga soo gudbo waa tilmaamaha dadka ahlu sunna wal jamaa dadka ahlu xaqa tilmaamaha ay leeyihiin way kala taguna waa dadka ahlu bid'a tilmaamahooda dadka lunsan tilmaamaha ay leeyihiin baa waxay tahay inay kala tagaan laakiin dadka ahlu xaqa waa wada joogan waa jamaaco waa mid ma kala tagaan saadarteed ayay kutubtooda ahlu sunna wal jamaa ay ku qoreen imaam Dahawi rahmatullahi alayhi kitaabkiisa al-aqeeda ad-Dahawiyya qarnigii saddexaad buu noolaa wuxuu leeyahay ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيقا وعذابا وحنو أركين أبو ليه جماعة يددكو إني مديهين أولا مدوه إني تهي حق يتوصنان إلا كلا تغانا وحنو أركينا لا حشو عذاب هذا الكاس أيكو غير قرنك السدحات بنورا الشيخ معاصر وشرحي هذا الكيس وحوي رحمة الله الشيخ فوزان وحليه معشر أهل السنة والجماعة أنا الاجتماع حق والفرقة عذاب فالاجتماع للأمة على الحق رحمة والفرقة بينهما عذاب وحليه معشر أهل السنة والجماعة والاجتماع يمذق حق إلا كلا تغانوا عذاب جماعة أمة المسلمين تهنا وحق ينحريس إن كلا تغانوا عذاب مركاسو وحكدم سيي وهذا من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة كاسوا سيد خالص كاهيد ومعنا برح على عيد وميريتان كالصحدة عيد عقيدة أهل السنة والجماعة فيجب الاجتماع ونبذ الفرقة معنا واحد ضدك مسلمين مركا واجب كوها إن اجتماع يبلشد لماذا معنا مدوغا يقولن كإن إلاليان إسكان الطوران أو يكتغان كلا تقى صادرت البوس ودرش قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا intaas haddii aan taas kaga gudbo waxaan ugu dambaysiinayaa wasaa'isha keeni kara dadka muslimiinta ahi inay midoobaan wax ka mid inaan sheego tan ugu horeysa qofku inuu garto ahmiyadda ay leedahay wuxdatu saf dadku inay midoobaan oo ay mid tahay dadku inay fahmaan waxyaabaha keeni kara muhiimadeedana oo qofku ku garan karo ama uu ku heli karo waxa ka midana dadku xiriirka dhexdooda inay hagaajiyaan dadka muslimiinta ah xiriirka dhexdooda inay hagaajiyaan salaantii booqashadii hadiyadii waxa soo dhami waa wax bulshada muslimiinta loo jideeyay si ay u jirto isjacaylkooda iyo midnimadooda inuu adkaado nabigu muxuu leeyahay tahaadu tahaabu isu macnaa hadiyeeya oo isjeclaanaysaan salaantu waa duco booqashada qofka gurigiisa markaa ugu tagto hadduu xanuunsan yahay haddii xoogaa mushaakil jiro iyo wixii la midka ah qofkaas qalbigiisa wuxuu ka dareemayaa inaad qof la dareemaya xanuunka iyo dhibta uu dareemaya tahay jacayl baa qalbigaaga ugu beermaya marka in la xoojiyo waxyaabaha dadka isu keeni kara waa waxyaabaha keeni kara inay sii jirto ay xoogsato midnimada iyo marka wada jirka dadka muslimiinta ah
وحكمده وحيابها كيني كره قفكو إنه ميزامه مركا وحشيغيه شيغتان كيسا صدورها وإن كان صوابا وحق wax intee la eeg buu waxdada iyo dadka muslimiinta wada jirkooda u dhimi karaa ilaa diinta islaamku masaalixda waa kala hormarisaa shay laga yaabo inuu labaduba ay fiican yihiin haddii midkood dhibaato ay ka imanayso midkoodna laga yaabo inuu isagu uusan dhibaato lahayn shariicada islaamku kaas macnaha maslaxadiisu ay weyn tahay oo dhibtu ayan ka imanayn bay hormarinaysaa marka xataa haddii adigu aad xaq wada haddii xaqaagaas uu bulshada wada jirkeeda wuxuu keenayo qofku xataa xaqiisa inuu maaragtay dib dhigo oo uu gaabiyo oo marka la fiirsado ayaa looga baahan yahay maxaa yeelay wada jirka muslimiinta iyo midnimadooda hadduu wax yeelayo waxaan ka hormarinaynaa wada jirka muslimiinta ayaa laga hormarinaya marka qofku inuu maaragtay xataa xaq haddii uu sheegayo xaqiisa wada jirka wax u dhibayo inuu ilaaliyo ayaa looga baahan yahay waxaa ka mid ah waxyaabaha ilaalin kara oo maaragtay runtii dadka muslimiinta midnimadooda ilaalin kara i'tidaal fi al-hukmi ala al-akhta' qof baa gaf sameeyay gafkii waa bayin waa cad yahay marka qofka aynu xukumayno i'tidaal iyo cadaalad inuu helo macnaha qofka kan xumaan buu sameeyay sii taqantaqeeyo jarka ka sii tuur inaan laga dhigin قفك وبني آدم نبي محمد صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون ووحي الله السنة كوني يقول قفك إنه خلدميه مركا قفك هدو خلدمه ولي خلدتيس هدوس عدين لقوها لما يوه ده وح قفك وهميه وعلتها يا إن لقوا حكومة دينتم أقرأ لكن قفك وابا خلدمي خلد عدو نبو من السماء قفك النوع عاسي حتى إنه وام حي نصيحة خير مير سودوين wixii kan oo qofka waxa weeye xumaantiisi si wanaagsan loogu bandhigo oo maaragtay aan sharka tuurahayn alla waa luga harta iga sii tuur qofku inuu san oranin macna qofka kan maxaa yeelay dadka qof kasta oo bulshada muslimiinta kamid waa loo baahan yahay ilmaha yar baan u baahanahay odayga weyn baa loo baahan yahay gabadha loo baahan yahay duqda weyn baa loo baahan yahay nabigu sallallahu alayhi wasallam bulshada muslimiinta gurigan buu ku misaaliyay يا هدي غوريغان هل لبن كم مقن يحي ماشا غوريغا لبنكو كم مقن يحي waxa weeye waa nuqsaan u imanaysa guriga intiisa kale oo meesha maxaa loo dhameystiri way loo hagaajin way macna la oranay marka sidaa darteed maadaama dadka muslimiinta ay yihiin wax dhameystiraya oo qolada kale waxa weeye u baahan tahay qofkii xumaanta sameeyay in nusuulka loo raacsiyo maahay waa qofkii in loo naseexeeyo si wanaagsan oo cadaalada markaa qofkii wanaag iyo khayrka loogu sheego allahumma de qofku haduu xumaantiisa ku madax adeego ilaa inaga ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka inaan hanuunka qalbiga ugu shubno leeyno soo dirin laakiin qofka in bayaan iyo cadeyn uu helo wixii khada uu ku jiro oo si naseexa oo khayr loogu cadeeyo oo waliba xataa cid u naseexaynaysa cid munaasaba ay tahay ayaa la rabaa marka bulshadii maadaama xubin kasta oo kamid ah inuu u baahannahay in qofkaana sida loogu cadaalad sameeyaa waxay keenaysaa markaa qofku inuu xataa naftiisa tadaaruko iskarto oo qofka kale inuu danaynayo oo khayrka uu la doonayo oo markaa dareemo kadib markaa qofku uu soo laabto ilaahna subhanahu wa ta'ala markaa uu uga toobad keeno xumaantii uu sameeyay waxaan ku soo khatimayaa innaga hadda mujtamaca Soomaali baynu nahay طبعا موضوع هذا أن كوره منه وده شركة لتكيسوا وكلا تج يو فرق تذكر إني من نقدان وكلا دومان إنك هذا مشترك الصومالي ذا النهاي أنت وحوي رنتي وحبا نقرانيسه ليلو ترجمه ما يدوات ذا إلى هاي وإن بدون إنك كم بدينا بلد كأنك كسر عرفه وبلاد دولش الشيء إنه كنا ولا عنه أما ذاتك أي قحوتي ويكون نقدان واحد صباوي وكلا تجينا si khaas ah si guud muslimiinta hadii loo fiiriyana arinkaasi waa arin isaguna sabab ah oo keenay dadka muslimiinta ah inuu takhalluf ku dhaco iskhilaafkooda ay iskhilaafeen in balaadoodii dhulkoodii uu googo
khilaafadooda muslimiinta in la waayo inay maanta iyagu noqdaan dad taag daran oo daciif ah macnaha si khaasa iyo si guud labadaba dadka muslimiinta maanta markay jamaacadii waayeen midowga iyo midnimadii ay waayeen waa meesha ay dacfiga iyo sababta keentay inay maanta iyagu bulshaadka macnaha caalamka ka jira ugu hoos maraan in badan oo ka midi marka waxaan leenahay war waa diintii war waa adduunyadii war waa magacii iyo muuqaalkii dhammaantood wuxuu ku jiraa midnimada iyo dadku inay midoobaan si gaara marka idinka reerin baari dabcan khayr badan ba hadda wadaan waa wanaagsan tihiin waad ku midaysan tihiin masaajidkiina iyo jaariyadda intiina halkan joogta intaan kolba ka warhayna waa dhici kartaa dee dadku ilaahay farasaman kama dhigin laakiin waxaan leenahay waa laga yaabaa inay dhici karto in ay haddaba ay jiraan ama ay jiri doonaan fil mustaqbal dad ay dhibayso kulankiinaan iyo jamaacadiinaan iyo khayrkiinaan iyo wanaaggan aad halka ku haysataan waxaan leeyahay marka dadka noocaasi hadday idiin yimaadaan war inaad waxa weeye qori faraar iskaga qabataan idinka aan la idinkala shukaansan waa laga yaabaa dadku waxa weeye Soomaalida ahay qabiilka iyo wixii la mida waa waxyaabaha ay dadka wax loogu shubo in xaq qabiil laga soo maro in marxaq maslaxad qof laga soo maro in maaragtay si wax loo tuso qofka waa dhici karta marka waxaan leeyahay saa wanaaga u bilowdeen khayrka u haysaan u midaysan tihiin mid u tihiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisa inaad u adeegtaan diyaarka ugu tihiin war halkaa ka sii wada ilaahayna subxaanahu wa ta'aala kaalmaysta waxyaabaha sababi kara inaad midnimada ku jirtaanna kaalmaysta oo waxa weeye runtii ku dadaala waxyaabaha furqada iyo kala taga keeni karana iska ilaaliya intaasaan ku soo koobayaa wallahu subxaanahu wa ta'aala شيخ سهل هذا المعزية شيخ مرة يبارك فيه موضوع قيم كينو سجيديي كان يوجد مدى ليس كانوا فإذا إلى هنا كله طبعا واسيد الشيخ الشيخ قد نكي كود على وريستا علنكي قالي على وريستا marka waxaan u malayn tajribe noogu filan waan leenahay marka Ilaahay waxaan weydiisanaynaa idinkiis inuu qalbigeena isu soo dumo qalbiyadana la inuu soo dumo Ilaahay weydiisanaynaa inagana dhigo umma waahida